Charlie Chaplin waxaa la aaminsan yahay inuu yahay shacabtiroolihii ugu weynaa ee adduunka soo maray, sidoo kale mid ka mid ah dadkii sumcadda u yeelay shirkadda Hollywoodka, waxaana loo yaqaanaa magaca The Title Trump. Chaplin waxa uu dunida ku soo biiray sanadii 1889, waxaana uu dunida faaruqay oo uu geeriyooday sanadii 1977. inkastoo laga joogo ku dhowaad hal qarni filimadii uu samayn jiray, haddana weli waxaa aflaantiisa lagu tiriyaa jawharad aan caadi ahayn, kuwa la mid ahna aan hadda kadib la heli doonin. wuxuu aad u jeclaan jiray inuu guursado gabdhaha da'da yar, waxaana sida la sheegay uu dhalay 11 caruur ah oo wiilal iyo gabdhaba isugu jiraan. sanadii 1952 waxaa laga soo eriyay cariga Mareykanka kadib markii la sheegay in afkaarta shuuciyada uu aaminsan yahay, sidaas oo ay tahayna dhaxalkiisa dhanka fanka lagama waayo shirkadda Hollywoodka. waxa uu aasaasay istuudiyaha loo yaqaano United Artists, kaasoo ah istuudiyo caan ah, waxaana filimaanta lagu duubay ka mid ah filimkii weynaa ee James Bond qaybtiisii koowaad sanadii 1963, balse haatan istuudiyahaasi waxa uu qayb ka yahay shirkadda MGM. Charlie Chaplin, shacabtiroolihii ugu weynaa ee abid soo maray caalamka, isaga ayaa alifi jiray muusikada filimaantiisa ku dhex jirta, waxaana la sheegaa in inta badan uu isagu alifi jiray, qaarkoodna uu xitaa ku qaatay abaalmarinta Oscar-ka. Master Charlie Chaplin waxa uu ahaa mid aad u nidaam jecel, isagoona aad u xiisayn jiray in wax kasta ay ahaadaan kuwa isku toosan, wuxuuna ku dadaali jiray in filimaantiisa qaladaadka uu ka ilaaliyo, xaqiiqadan ay u ekaadaan. mar uu jilayay filimka City Lights, wuxuu ku qasbay atirishadii filimkaasi oo la oran jiray Virginia in hal muuqaal lagu soo celiyo duubistiisa 342 jeer, iyadoo ay xusid mudan tahay in muuqaalkaasi uu ka koobnaa kaliya 2 eray. tanina waxay caddaynaysaa sida uu Charlie Chaplin u ahaa qof wax kasta in sidii la rabay ay ahaadaan jecel. wuxuu ahaa mid aanan dadka kale ku kalsoonayn, door kastana inuu isaga jilo ayuu jeclaa. waxaa la sheegay in xitaa uu gaaray heer inuu damco in uu jilo filim uu isaga kaliya ka soo muuqanayo, qof kalena uusan ku jirin. sanadii 1972 waxaa lagu sharfay inuu ka soo qayb galo xafladda abaalmarinta Oscar-ka, inkastoo Mareykanka laga mamnuucay, haddana maamuuskaasi ayaa loo sameeyey iyo raaligelin, wuuna aqbalay, isagoo bilad sharafeed halkaasi ku gadoomay, waxaana xafladdaasi ay ka mid ahayd kuwii ugu saamaynta badnaa. haweeney cirbixiyeen u dhalatay waddankaasi Russia, islamarkaana soo iktishaftay in ka badan 100 meere ayaa mid ka mid ah meerayaashaasi isaga ugu magac dartay, waxaana loo bixiyey Chaplin 3623. gurigiisa uu Switzerland ka deganaa markuu dhintay kadib waxaa loo bedelay madxaf ay dalxiisayaasha soo booqdaan, waxaana la sheegay in sanadkii koowaad kaliya ay soo booqdeen in ka badan 300,000 oo ruux oo doonayay in guriga shacabtiroolihii caalamka soo maray ee Charlie Chaplin ay mar booqdaan. Charlie Chaplin markii uu dhintay xitaa hadalhayn ayuu abuuray kadib markii tuugo ay meedkiisa xadeen, islamarkaasna ay dalbadeen lacag dhan $600,000. ha yeeshee tuugadaasi booliska ayaa gacanta ku soo dhigeen, iyadoona shacabtiroolihii caanka ahaa ee dunida soo maray ee Charlie Chaplin dib loo aasay. haddaba daawade, miyaad mar daawatay filin uu qayb ka yahay Charlie Chaplin? dabcan waad ku qanci doontaa oo wax badan ayaad qosli doontaa marka aad daawato muuqaaladiisa. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.